bank.com. fursad weyn ayuu u yahay maanta ummadda Soomaaliyeed inay shirkani halkan uu ka dhaco oo ay isugu yimaadaan bahdi warbaahinta waxaana laga rajaynayaa wax weyn oo Soomaalida u bedela waqti cusub inay ka soo baxaan ujeedada shirka haddaan soo koobo number 1 waxa weeye inaan annabka dawlad ahaan iyo dawladda laamaheedu isu helno fursad aan ku tashano qorshe qaran na ku samaysan number 2 ajadiisa labaad waxa weeye dawladda iyo warbaahinta xorta ah ee Soomaaliya inay fursad isu helaan oo wada fadhiistaan oo ka tashadaan sidii ay u samaysan lahaayeen nidaam ay ku wada shaqeeyaan oo wanaagsan nidaam ay dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ku gaarsiiyaan fariimo sax ah oo wax ku tara noloshooda iyo systemkooda dawladnimo wax ku tara sidii ay labada hay'adood ee Soomaalida ee dawladdii iyo laamaheedii iyo warbaahintii xorta ahayd ay fursad ay ku wada hadlaan muhiimah ugu dambaysa waxa weeye in aanu wakiilada beesha caalamka ee na taageera la kulan warkana waxaa fiican warka wariyaha uu sheegaya war xaqiiqo ah tafatiran inuu noqdo annagu waxaan dowlad goboleedka Jubbaland waa dowlad goboleed ka tirsan dowladda federaalka runtiina ma hayna ilaa hadda haddii jirta hataa hal wariyo lagu dhibaateeyay had iyo jeerna waxaa la sameeyaa warar aan la yaabno taas beddelkeeda kama jawaabno umana jawaabna warka xun ee sida xun loo sheegay wariyada kuma dhibaateyno ma dhahana maxaa waxa u samaysay shaqana kama joojino waxaan idhaahdaa warniyow hadduu u bato warniyow isa sax oo waxaad samaysaa suxufiyaad tahay mustaqbalkaaga baalmadow ha gelinin wax sax ah dhig marka maanta sharci loo helo annaga iyo ayagana kala haga ayagana xuquuqdooda ilaaliyo annagana naga ilaaliyo waxa yeelada macnaha salkii raad ka leh aad aan u faraxsanahay waxaana soo dhaweynaynaa shirka waxaa looga tashanayay sidii aanu dadka Soomaaliyeed waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in aan maaragtay shirkan heerka qaran ah ee looga akhrisanayo istiraatiijiyada warbaahinta heerka qaran in maaragtay run ahaantii uu taabo galo iyadoo maaragtay arrintaasna aan uga mahadcelinayo wasaaradda faafinta iyo qaramada midoobay oo runtii taageergeliyay ayna u tahay warbaahinta Soomaaliyeed fursad aad u weyn oo runtii maaragtay ay marka koowaad u ah mid isku xog wareystaan isla mar ahaantaana ay ka wada hadlaan istiraatiijiyad dhab ah oo warbaahinta dalku ay yeelato waxaan la soconaa in maaragtay waddanku uu marxalado kala duwan soo maray iyadoo maaragtay hadda sharcigii saxaafaddana uu baarlamaanka yaallo iyadoo maaragtay hay'adaha internationalka ee dalka joogana ay maaragtay taageero badan dalka siiyaan haddana taageeradaas ay siiyaanna loo baahan yahay inay noqoto mid ka turjumaysa baahida saxafiyiinta haysa hadday joogaan gobol iyo hadday joogaan muqdishoba. Assalamu alaikum good morning. Today's historic event has been organized by the Federal Ministry of Information, Culture and Tourism, and I congratulate the Minister and his staff for today's event. And it is a great pleasure to see in the room the representatives of Puntland and the emerging federal member states. It is vital that the government institutions here represented reach agreement on a framework that will promote a coordinated approach in their relations with the news media. You will also discuss, I believe, the pending federal media bill, which was approved by the Council of Ministers in September of last year and submitted to the Federal Parliament shortly thereafter. I think it's important there is a discussion which is with all the emerging federal member states. waxaan ka mid ahay ergada ka qayb galaysa shirka
waana shir aan dhihi karo waqtiga ku habboonaa ayaa la qabtay run ahaantii shirweynaha wuxuu ku saabsan yahay sida aan ajandaha aan ku aragnay wada shaqayn guud inay yeelato dhammaan dowlad goboleedyada oo hadda heer federaal arrimahooda ku saabsan iyo warbaahinta madaxa bannaan iyo wasaaradda inay yeelato wada shaqayn guud si loo hiigsado 5 sano ee soo socoto Alanka.com